إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليك الله يا عدناني، يا واحد الديان، يا صفة الرحمن، يا صوت العالية. أما بعد، والله ليال إلهي بمهد إسكاله markale inoo saamxay inoona ogolaaday in maaragtay aynu kulanno, isna maqalno, isuna gudbino khayrka, isagana dardaaranno xumaanta. walaalayaal maanta insha allahu tacaala waxaan jeclaystay inaan idila wadaago laba tiir oo aada u muhiima oo diinteennu in badan ay ka hadashay, oo ah al-amru bilmacruufi wannahyi cani ilmunkar, wanaaga oo laysfaro, xumaanta oo layska reebo. ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan kitaabka qur-aanka kariimka ee tansiilka ayuu kaga hadlay in badan, isagoo inala hadlaya rag iyo dumarba, inoona sheegaya faa'iidada ay leedahay wanaagga oo laysfaro iyo xumaanta oo layska reebo. sidaa awgeed walaalayaal, ilaahay wuxuu ku leeyahay kitaabka qur-aanka tansiilka ah bacda acuudu billahi min ashaytaani alrajiim: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkar watu'minuuna billah. waxaad tihiin ummadda ugu khayrka badan, waxaad isfaraysaan wanaagga, waxaad iska reebaysaan xumaanta, waxaanad rumaynaysaan ilaahay subxaana wa tacaala. sidoo kale rasuulku sala allahu alay wasalam axaadiis aada u badan ayuu kaga hadlay. haddaynu soo qaadano hal xadiis oo ka mid ah, xadiiskaas oo uu warinayo cabdiraxmaan binu sakhar, waa saxaabiga loo yaqaano abi hurayra radia allahu canhu, allaha ka rala noqdee. qaala wuxuu yidhi: qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, waxaan maqlay rasuulka sala allahu alay wasalam oo leh: min xusni lislaami mar-u tarku maa laa yacniihi. waxaa ka mid ah akhlaaqda wanaagsan ee qofka islaamka ah inuu iskaga tago waxyaabaha aan u wanaagsanayn naftiisa iyo maaragtay camalkiisaba. waa xadiid saxiixa weeyaan xadiidkan, rawaahu tirmidi ayaa wariyey. sidaa awgeed walaalayaal, inaan wanaagga isbarno oo maaragtay xumaanta aan iska reebnaa waa shay muhiima. mar walbana loo dadaalo khayrka, ilaahay subxaana wa tacaalana aynu ugu dhowaano maaragtay wanaagga. wax allaale wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu ina faray oo maaragtay inaan iska dayna ah, ee xumaanana inaan ka fogaano, wixii khayrana mar walba inaan ku dadaalno biidni illaah. aayad kaleoo qur'aanna waa tan leh: faman yacmal midqaala daratin khayra yarah waman yacmal midqaala daratin shara yarah. qofkii sameeya wax yar oo maaragtay shar ah, maalinta yowmalqiyaama wuu arki doonaa. qofkii sameeya wax yar oo khayran, maalinta yowmalqiyaama camalkiisa ka mid tahay wuu arki doonaa. sidaa awgeed walaalayaal, maadaama qof walba bashar iyo qiyaamihii ilaahay hor istaagii xisaab ay sugayso, waxaynu isu dardaarmaynaa dhallinyaroy insha allahu tacaala wanaagga in laga shaqeeyo, khayrka laga shaqeeyo. wax walboo la samaynaya iyo wax walboo la qabanayana in dhanka khayrka mar walba loo dadaalo, dhanka sharkana laga fogaado. intaan xalqad la mida ku kulmayno, waa anigoo walaalkiinoo kaga tegaya. asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh.